Engineer Yasin waa mahadsantahay mar kale wararka ku saabsan dalka Qatar xiisada ka taagan ee u dhaxaysa dalalka Qatar iyo waliba dalalka dariska la oo shantii bishan June xiriirka u gooyay isla markaana xanibaad cirka dhulka iyo badda aaba saaray ayaynu jecelahay mar walba inaynu bulshada Soomaaliyeed iyo dhageystayaasha qiimaha leh aynu la wadaagno waxaan jecelahay maanta oo Arbacaa bal wararkii ugu dambeeyay iyo waxyaalaha ka soo kordhay horumarada iyo dib u dhacyada diblomaasiyadeed ba inaynu guud ahaan dul marno waxaana runtii aan ku bilaabi doonaa in ifaalayaal muuqda ay muujinayaan dabacsanaan dhanka siyaasadda iyo dhanka diblomaasiyadda ah oo ka soo duulaya ama ka soo maartay isha laga dareemayo dalalkii hore talaabooyinka adag u qaaday waxaana jira xidhiidho waaweyn oo aynu sheegi doono dalalka hogaaminaya ee doonaya arrinta inay isku soo dhaweeyaan wararkuna sida uu kala sareeyaan ayaynu runtii ama u kala cusub yihiin u kala horeysiinana ugu horeen dawladda Qatar ayaa ku dhawaaqday inay ciidamadeedii ka joogay xuduudda dalalka Djibouti iyo dalalka Eritrea ee nabad ilaalinta ah kuwaas oo gaarayay 450 askari ee guud ahaan kala soo baxday dalalkaas dalka Eritrea oo hore isaguna u sheegay inuu arrinta dhexdhexaad ka yahay arrintana uusan xiriirkana u jari doonin Qatar goor dambe ayuu wasiir ka tirsan wasaaradda dawladda madaxweyne Asiyaas Afwerki wuxuu amaanay talaabada laga qaatay Qatar sidoo kale dawladda Djibouti goor sii horeysay sideen wararka hore ku tabaynayba waxay hoos u dhigtay xiriirka diblomaasiyadeed ee Qatar la lahayd sidaa daraadeed Qatar waxay ku dhawaaqday inay 450 askari oo ka joogay xuduudda ay isku haystaan ama deegaanka Ras Dumeera ay labada dal 5 sano ka hor isku khilaafeen ay gabi ahaan ciidankoodii ka soo daadgureysteen isla markaana ciidamadaas ay ka tirsanaayeen ciidamada caalamiga ah ee nabad ilaalinta ah ee mandaqadaas joogay waxayna taas hoosta ka xariiqday in Qatar iyaduna ay talaabooyinkooda gaarka qaadanayso waxaana laga yaabaa arrintaas inay Djibouti lafteeda ay ku noqoto culays weyn maadaama Djibouti ay horay iyadu u codsatay ciidamada nabad ilaalinta ah waxayna taas caaqib xumo ku noqon kartaa durbaba in Djibouti ay heshay maartay jawaabta ficilkii hore ee loo dad badan u qaateen inuu degdeg ahaa dalka Qatar hadda saacadu ay tahay 12kii subaxnimo ee waqtigooda waxa gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ninka la yiraahdo Mevlut Cavusoglu oo dalka Qatar xiriir wanaagsan la leh dalkiisu leeyahay waxaana uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka si Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Tassim Al Thani oo ay ka wada hadleen arrimaha gobolka ka taagan iyo cunaqabataynta ama xanibaadda dhaqaale iyo cireed dhuleed iyo socod ee la saaray dalka Qatar Mr Mevlut oo ka soo baxay magaalada Ankara oo uu ka soo duulay isla saaka goor hore ayaa gaaray Doha wuxuuna sidoo kale martiqaad ka helay oo la kulmi doona amiirka dalkaasi Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani waxayna ka wada hadli doonaan bal arrintan sidii loo dabci lahaa sidoo kale warar diblomaasiyadeed oo dalka Turkiga wasaaradooda arrimaha dibadda ka tirsan ayaa tibaaxaya inay sugayaan bal wasiirku inuu gaaro dalka Saudi Arabia waxa ay suurtagal tahay bay yiraahdeen halkaas calaamatu al ayay galiyeen ilaha diblomaasiyadeed aan helay waxayna muujinaysaa in wadanka Sacuudiga uusan aad ugu qanacsanayn doorka Turkiga ee cadaanka ah ee sida weyn isku garab taagay dalka Qatar wuxuuna madaxweynaha Turkiga mar kale ku celiyay shalay galab in uu muhiim tahay in dalka Qatar laga qaado cunaqabataynta balse qodobkaas wararka dambe ku jiraan waynu faahfaahin doonaa sida uu hadalka u dhigay oo ahaa hadalkii ugu cuslaa marka la eego eray bixinta uu adeegsaday oo dib aynu ka sheegi doono sidoo kale waxa jiray dalka Bahrain waxa lagu xiray in la yiraahdo nin kamid ah maartay qareenada u doodayay dadka qadariyiinta ee dalkaas ku dhaqan oo maxkamadda sare ee dalkaasi u gudbiyay dacwad ka dhana in dadka qadariyiinta wadanka laga saaro ama dadka laga eriyo ninkaas oo ah lawyer dhinaca xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa oo la yiraahdo Isa Faraj Al-Burshaydi waxaana lagu xiray magaalada Manama oo dalkaasi Bahrain kadib markii uu maxkamadda sare ee dalkaasi u gudbiyay in arrinta dawladdu sameysay ay tahay arrin sharciga ka soo horjeeda isla markaana sharciga caalamiga ee international human law ay ka soo horjeedo in qoysaska la kala gaxiyo isla markaana go'doon la geliyo dadka maartay ayagu qoysaska ah ee isqaba iyo caruuraha iyo dadka wax ka baranaya dalkaas waxaana ninkaas la sheegay in dawladda Bahrain ay go'aan ku gaadhay inay xidho dawladda Bahrain ayaa dadka iska inta badan xidha mucaaradkeeda ayadoo dalku uu yahay dal ay hogaamiyaan sunniyiintu balse tira ahaan dadka shiicadu ay ku badan yihiin horeyna ay uga dhaceen mudaharaadyo looga soo horjeedo xukunka dalkaas ama amiirka dalkaasi laakiin gacan bira ay ku qabteen oo ay ka adkaadeen Sacuudiga
sacuudigan uu ciidamo u diray oo si uu maartay oo la tacaalaan mudaharaadyadii kasoo horjeeday sidoo kale dhacdo aysan ku farxin qadariyiintu ayaa ka dhacday ciyaar isreebka koobka caalamka kadib markii sida la sheegay kooxda dalka Qatar u ciyaareysay ay garamaan la soo baxeen ay ku qoran yihiin maartay ama ku sawiran yahay ama magaca oo muujinaya ama taageero magaca amiirka dalkaasi Amir Tamim bin Hamid Al Thani waxayna sheegeen in maartay shibleen ahaan aysan ay kooxdu wajihi doonto ama in maartay sheegeen akhlaaqda ay ku ciyaaraan ama dastuurka u yaala FIFA la baro oo maartay xanibaad la saaro ama la saaro ganaax noocaas ayaa laga digay waayo FIFA hadal ka soo baxay FIFA waxa ka mamnuuca inaan wax haba yaraatee la xiriira diin iyo siyaasad ama arrimo ganacsi oo aan marka hore shirkadahaas oo aysan ahayn shirkadaha heshiiska la galay FIFA iyo waliba qaranka ama teamka markaasi cid dooraba ha noqdee meesha ciyaaraya aysan soo bandhigi karin isla markaana aysan masraxa ciyaarta aysan keeni karin oo ah sport inaysan haba yaraatee aysan keeni karin wax siyaasada balse waxaad moodaa arintaas xogaa jibe inay qaaday teamka qadariyiinta taasuna ay ku keentay in runtii la yiraahdo waxa laga qaadi doonaa talaabo inkastoo talaabada qaadaya ay noqon doonto mid khafiif ah sida laga turjuba karo hadal qoraal ah oo FIFA ka soo baxay teamka ama qaybta gudiga loo yaqaano disciplineka u qaabilsan FIFA ama ururka kubadda cagta ee caalamka sidoo kale waxa iyadoo cabsi fara badan ay jirtay gobolka iyo gariirka ciidamadooyinka iyo waxyaalaha dhaqdhaqaaqa militariga isdhaafdhaafaya iyo sidoo kale maraakiibta ay dirayso dalka Iran sidoo kale dalka Turkiga uu ciidamo halka uu diray maanta waxa gaaray magaalada Doha saraakiil ka socda wasaaradda difaaca ee dalkaasi Turkiga oo runtii la leeyahay waxay u sii yihiin gobol xaad ciidamo dheeraad ah oo Turkigu doonayo inuu geeyo Qatar waxaana wararku sheegayaan in arintaasu ay keentay in ay mar dhaweeto uu hadlo ninka ama safiirka dalka Imaaraadka Carabta u fadhiya wadanka Mareykanka Yusuf Al Utayba oo sheegay in haba yaraatee aysan ayagu marnaba wadin talaabo military oo dalkaasi ka dhana wuxuuna hoos ka xariiqay in arintu ay had arin ku siman buuri cadaadis dhanka dhaqaalaha ah oo ay doonayeen buuri in siyaasadda guracan sida uu yiri Qatar ay wax kaga bedelaan kuna maartay culays ku saaraan wuxuuna yiri sidoo hadda waxaanu diyaarinay buuri liis ay ku qoran yihiin cabashooyinka iyo codsiyada aan doonayno in ay bedesho dalka Qatar waxaana gacanta ka saarnay buuri diblomaasiyiinta Washington ama dalka Mareykanka si ay arinta u sii amba qaadaan ayuu yiri haba yaraateena wax talaabo military oo anagu aan uga soo horjeedno dalkaasi ma jira buuri taana yaan laga cabsanin balse waxaad moodaa in taas ay dhalisay dhaqdhaqaaqa qadariyiintu ay xagga dibadda ka sameeyeen iyo galaangalka ay ka heleen wadamada kale ee caawinaya inay koonu ay rabaan inay cadeeyaan dalalkan cunaqabateynta saaray dalkaasi inaysan iyagu wax talaabo military aysan wadin sidoo kale dalka Mareykanka ayaa sheegay afayeen u hadashay dalka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in horumar laga sameeyay arrimaha diblomaasiyadda ee ku aadan xalinta khilaafaadka Qatar iyo wadamada saaxiibada dariskooda ah waxayna sheegtay Heather Nauert in ay runtii wax dhibaato badan oo culeyskeeda leh ay dameyso laakiin horumar yar loo sameeyay bay tiri xagga maartay sheegeen wanaaga iyadoo ka hadlaysay kadib markii uu booqashaalkaasi ku tagay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Adil Al Jubeir oo inuu qodobada dambe ku soo qaado doono cid uu la kulmay iyo waxyaalihii uu asoo halka ka yiri sidoo kale boqorka dalkaasi Jordan boqor Abdullah labaad oo runtii horay asagu u taageeray ama dhinaca saaray Saudi Arabia kadib markii dalkiisu inkastoo san xiriirka u wada jarin dalka Qatar talaabooyin cunaqabateyn iyo xanibaadana uusan saarin balse waxay dhimeen oo horay hoos u dhigeen xiriirka diblomaasiyadeed dalkaas la lahaayeen ayaa haatan wuxuu ku sugan yahay magaalada Kuwait dalka Kuwait wuxuuna kulan la qaatay Amir Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah oo ah amiirka dalkaasi oo uu runtii isku dayay isagoo inuu arintaasi la dajiyo lana badbaadiyo golaha iskaashiga khaliijka Carbeed ee la yiraahdo GCC sida ay ku warantay wakaalada wararka ee dalkaasi kuna waxaana labada dhinac ka wada hadleen bay
tiri sidii loogu maartay isha ololeelaha in la baadi doono bay yiraahdeen midnimo carbeed isla markaana arinta cunaqabataynta iyo walaacan gobolka lagu godoominayo dalka yar Qatar la joojiyo oo runtii xal la raadiyo waxaana waftiga boqor Cabdalla lagu tilmaamay wafti culus oo kamid yahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hani al-Mulki ninka qaabilsan بروتوكول مدحوينها فايز التراويح ninka la yiraahdo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ayman al-Safadi dhamaantood waxay ku sugan yihiin Kuwait waxaana la sheegayaa in ay runtii riixayaan oo taageerayaan dadaalada uu wado boqorka amiirka Kuwait oo ninka kaliya ilaa hadeerto asagu arintaasi uu tafaxaytay inuu si nabad ku soo dabaalo oo runtii dhaxdhaxaadnimo ku jirto maaragtay dib u heshiisiin horbooday sidoo kale waxyaalaha dabacsanaanta markaan waxay warbixintan hore waxaan ku sheegnay in ay soo baxayaan ifafaalooyin isbedel dhinaca dabacsanaanta ayaa waxay durbaba muujinayaan waxooga inay arintu dib hoos u dhacayso ama qaboobayso iyadoo mar walba ay tahay in xagga wanaagga arinta laga rajeeyo waxa war qoraal soo saaray wasaaradda ama hay'adda u qaabilsan hawada u qaabilsan dalka Imaaraadka Carabta waxayna sheegeen in hadda wixii ka dambeeya diyaaradaha aan ka diiwaan gashanayn dalka Qatar balse dalka Qatar ka soo duulaya ee dalalka kale dabcan hase yeeshee aan ahayn diyaaradaha laga leeyahay Qatar aan ahayn ay hawada dalka Imaaraadka Carabta isticmaali karaan ayagoo ka imaanaya ama aadaya Qatar arintaas waa arin muhiim ah marka hore waxay xanibeen guud ahaan hawada dalkaas oo dhan baa la xanibay in wax ku socdaan aysan wadankooda dulmarin hawada sare ee dalkaasna aysan isticmaalin taas waxay runtii muujisay arin dabacsanaan yar inkastoo ay yiraahdeen dhammaan diyaaradaha ka diiwaan gashan ama laga leeyahay dalka Qatar sida Qatar Airways iyo kuwa kale gaarka loo leeyahayba inaysan haba yaraatay isticmaali karin wali oo ay wali xanibaadu saaran tahay balse diyaaradaha kale ganacsi ama kuwa kale gobolka ama kuwa military gobol dabcan Mareykanka meesha wuxuu ku leeyahay base weyn oo military waxay yiraahdeen si toos ah ay u isticmaali karaan hawadeeda ayagoo aadi kara kana imaan kara dalka Qatar taasna waxay muujinaysaa in arintu ay dabacsanaan soo muuqato waayo Qatar haba yaraatay shirkadaha waaweyn ee dalkaas Imaaraadka diyaaradaha sida Emirates Fly Dubai midnaba may xanimin oo hatta ayaga unba ka qaatay xiriirkii oo yiri ma aadi kartaan dalkooda laakiin Qadariyiintu haba yaraatay wax talaabaha ka soo horjeeda arintaas ma aysan sameeynin taasna waxay muujinaysaa xogaa dabacsanaana sidoo kale dalka Masar ayaa asaguna arintaas ay ku dhawaaqday Imaaraadka Carabta sidoo kale asaguna ku dhawaaqay wuxuuna yiri dhamaan diyaaradaha sifilka ama diyaaradaha shacabka ee dalkaasi laga leeyahay Qatar aan laga lahayn dalka Qatar balse dalka Qatar ka shaqeeya caalamka kale ka tirsan way isticmaali karaan hawadeeda wayna aadi karaan dalkaasi wayna ka imaan karaan dusha dalka iyagana way mari karaan sida uu sheegay wasiirka maaragtay garoomada iyo maartay hawada ee dalkaasi Masaarida sidoo kale waxyaalaha soo kordhay waxa kamid iyadoo dadaal xoogan ay soconayaan boqorka Morocco boqor Maxamed Kalixaad ayaa asaguna wuxuu soo saaray war qoraal oo si buuxda wuxuu yiri waxaan u siiyay kalsoonideyda Sheikh Amiirka dalka Kuwait Amir Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah wuxuuna yiri waxaan ku taageeranaa inuu arinta uu horboodayo ee nabadda wuxuuna sheegay inuu runtii Morocco ay ku adkaysanayso muhiimadda bay yiraahdeen in arinta khaliijka lagu dhameeyo nabadgelyo isla markaana wada hadal miiska lagu dhameeyo isla mar iyadoo la eegayo buri walaalnimada iyo waliba xiriirka soo jireenka ah ee 37 jirsaday ee maaragtay kadib markii 1961 la aasaasay golaha GCC isla markaana lagu yiri uu ku badbaadinayay buri amiirkaas ururkaas oo mid muhiim u ah dunida islaamka iyo Carabta waa sida uu sheegay boqor Maxamedka lixaad ee Morocco oo hadal qoraal soo saaray wuxuu yiri dhamaan kalsoonideedii waxaan gacanta u geliyay amiirka Kuwait oo walaal buuri u soo baxay Carabta isla markaana ka odayaanaya arintan haatan buuqan wadamadan ka soo kordhay sidoo kale safiirka dalka Qatar u fadhiya magaalada Moscow ee dalka Ruushka Fahad bin Mohammed Al-Atiya ayaa wuxuu sheegay in arinta Qatar iyo wadamadan aysan ahayn xiisad siyaasadeed ee ay tahay
go'doon sharci darro ah oo caalamka oo dhan ay la yaaban yihiin wuxuuna yidhi dhammaan dadka ay arrintaas saameysay waa dadkii shacabka ahaa waa ganacsatadii wuxuuna yidhi arrintaas ma noqon karto in lagu tilmaamo qalalaase diblomaasiyad maaha buu yidhi waa xanibaad buu yidhi aan sharci ahayn wuxuuna sheegay in dhammaan hawada la xidhay iyo badda la xidhay iyo dalka Sacuudiga isaguna xidhay dalka Sacuudigu dad badan ayaa soo codsaday intee xuduud ayuu qadar dalalka la leedahay arrintaas waxaan runtii jeclahay inaan idin sheego dalka qadar wuxuu wax xuduud oo dhul la leeyahay kaliya Sacuudiga dal kale oo xuduud u leeyahay ma jirto oo maartay sheeg caalamka ah haba yaraatee waa dal aad iyo aad u gaaray inuu jasiirad noqdo marinka kaliya dhuleed ee la isticmaalo waa kan qadar iyo Sacuudiga wadamada kale oo dhan waxay xuduud kale yihiin xagga badda iyo xagga cirka waxayna ku yaalaan waxaana ku xeeran badda la yiraahdo Persian Iran ay maartay qaybta ugu weyn ka degantahay marka aan ku noqono safiir al-Atiya wuxuu hoosta ka xariiqay in dalkiisu uusan qaadanaynin waxa uu ugu yeeray kibir qooqa ay dalalkaasi ku sameeyeen wuxuuna sheegay in arintu aakhirka ugu dambaysa haday sida ugu dhaqsaha badan loo xalli waayo oo xalku u noqon waayo mid maartay sheegeen lagu qanco mediation-ka ama maartay odayeynta wadaynta Kuwait dalalka ka mid tahay iyo Turkigu wadaan in aakhirka la aadi doono golaha amniga qaramada midoobay taasoo marka ugu dambaysa ku lagu khasbanaa doona buu yiri maadaama dalkan aan lagu haynin wax cunaqabatayn caalami ah oo sharciyan golaha ammaanka la waxay inay golaha ammaanku cambaareed doonaan isla markaana ay ugu baaqi doonaan inay ka noqdaan dalalkan iyadoo sidoo kale laga yaabo in loogu yeero miiska wada hadalka oo uu noqdo arrin caalami noqoto horeyna shalay waxaan u sheegnay in wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Anwar Gargash dalka Imaaraadka Carabta uu ka cawday arrinta in la caalamiyeeyo balse qadar saaxiibadooda iyadoo adeegsanaya reer galbeedka iyo waliba dunida islaamka oo aad moodo runtii in intooda badan arrintan ay dhaxdhaxaad ka noqdeen sida dalka Soomaaliya oo kale iyo dalalka kale inay aad iyo aad u xoojinayaan in arrinta la caalamiyeeyo oo la tuso in laga khaldan yahay isla markaana ilaa xad arrintaas gacan bir lagu isticmaalay oo dhibaato weyn oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid go'doon iyo mid shacbiyeed iyo mid ilaa heer qoysas la geliyay sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq horay aan iyagu go'aankooda arrintan siyaasadeed aan ku dhawaaqin inkastoo arrinta ay si kale uga hadleen ayaa markii ugu horeysay warcad ka soo saaray arrintan asagoo waliba ku soo jeeda magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia iyo hoosta wuxuu ka xariiqay ninka la yiraahdo Haydar al-Abadi in ay sharci darro tahay ayuu yiri go'doominta qadar isla markaana wuxuu yiri arrinta ku saabsan in safaradii iyo dhammaan hawadii la isticmaalayay iyo raashinkii iyo wax kasta oo xiriir ah laga gooyo dalka qadar wuxuu ku tilmaamay arrin aan runtii aan waxba tarayn buu xukuumadaha laakiin ba dhibaatada ugu weyn iyo dhaawaca ugu weyn wuxuu gaarayaa buu shacabka wuxuuna yiri anagu runtii waxaanu doonaynaa buu bal inaanu helno markaan anigu taga buu magaalada Riyadh inaan bal boqor Salmaan weydiiyo buu waa boqorka Saudi Arabia bal inuu cadeeyo waxa ay runtii u cuskadeen maartay sheeg eedeynta ka soo horjeeda dalka qadar isla markaana ay siiyaan faahfaahin dalkiisa waa sida uu sheegay dalkaas runtii sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda arrimaha difaaca ee dalka Mareykanka ayaa xubin u hadashay oo ah madaxa guud ee ciidamada qalabka sida dalkaasi Joseph Dunford ayaa wuxuu sheegay in runtii aysan wax saameyn ayaga ku yeelan dhaqdhaqaaqooda base-ka weyn ee Xudayda ku leeyihiin dalkaasi qadar isla markaana ay wali ayagu hawooyinkiisa caadi u isticmaalayaan sida uu sheegay sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dalka Saudi Arabia oo gaaray magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka Adil al-Jubairi lana kulmay dhigiisa dalkaasi ama xogayaha guud ee xogayaha arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka Rex Tillerson ayaa wuxuu ugu yeeray in ay khalad tahay dadka adeegsanaya in arrinta dalka ay saareen ama cunaqabata ay saareen xanimaad ay saareen dalka qadar aysan ahayn xanimaad wuxuuna yiri qadar ma kama jiro wax cunaqabatayna wuxuu yiri dekedoodii waa furan yihiin airportdoodii waa shaqeynayaan cuntooyinkooda caadi bay u helayaan dalku uu shaqeysanayaa annaga ayaa wuxuu yiri xaq waxaanu sameeyay waxaan xaq u leenahay taasoo ah buu yiri waxaanu xidhnay hawadayadii iyo xuduudii aan dalka la lahayn taasuna ma aha buu yiri cunaqabatayn ka dhana dalkaas wuxuuna yiri warbaahinta iyo dadka adeegsanaya arrintaas wana ka waantoobaan ayuu yiri Adil al-Jubairi wuxuuna ku nuxnuxsaday in dalkaas uu wali arrimihiisu caadi u kala socdaan noloshu caadi tahay balse
balse weligeed baa la arkay buu yiri dalal kalsoonida kala qaata ama safaaradaha kala xidha ama sameeya maartay buu yiri tan oo kale matalaabooyinkan oo kale kala qaata waxaana taana anaga xaq u leh buu ciduna runtii naguma khasbi karta buu yiri inaanu sida ay doonayaan Ciraaqintu aanu sameeyno wuxuu kaliya uu yiri waxaanu xadidnay kaliya isticmaalka hawadageeda isticmaalayeen iyo kii badayada isticmaalayeen sidaas ayuu ka sheegay shirka jiraayid inkastoo Rex Tillerson uu ku nuxnuxsaday inay muhiim tahay in arrinta la fududeeyo isla markaana xagga loo dhaqaaqo wada jirka sidoo kale waxa barteeda Twitter-ka soo dhigtay hadal safiirkii dalka Qatar uu fadhiyay dalka Mareykanka Dana Shell Smith waxayna sheegtay inay xilligii ka dhamaaday safiirnimada dalkaas ayadoo tiri 3 sano aan dalkan joogay waxa ay tahay bay tir farxad runtiina wuxuu habaytay dal sharaf leh oo nolol shayda aan u xiisi doono aan ogaa doono waxayna sheegtay in bixitaankeeda aan si kale loo tarjuman ay tahay uun sida rotationka caadiga ah ama bedelaad caadiga ahayd safaaradaha xilliga missionkooda dhamaado inay ka bedeshaan oo dal kale loo bedelo waxayna sheegtay inay guul rajeeyo doonto cid kasta loo soo magacaabo Dana Shell Smith oo Twitterkeeda ku sheegtay inay ka baxayso dalkaasi Qatar balse aysan hayn wax haba yaraatee dhibaato ku ah guud ahaan yaasina marka la soo koobo arrimaha bariga dhexe wali xiisad lama oran karo waxba iska bedelay weyn hase yeeshee ifaalooyinka socda ilaa hadeerto kama sii darayaan sidii maalmihii aynu soo dhaafnay wixii shalay ka horeeyay iyo maanta wixii ka horeeyayba arrimuhu way ka sii darayeen laakiin hadda waxaad moodaa in arrintu ay yara qaboojiyay diblomaasiyad xooggan ay socoto madaxweynaha Ruushka Putin ayaa isaguna telefoon kula hadlay dalka boqorka dalka Sacuudiga King Salman bin Abdul Aziz Al Saud wuxuuna u sheegay in arrintaas ay dhaawacayso dagaalka looga soo horjeedo argixisada iyo waliba wuxuu ugu yeeray dib u heshiisiinta iyo nabadeynta laga wado haatan iyo wada hadallada nabadda buuriya dalka Syria oo meel fiican maraya wuxuuna ka digay in arrintu ka sii darto wuxuuna sheegay in wada hadallo la sugu yimaado arrintana lagu dhameeyo diblomaasiyad waa sida uu sheegay Mr Putin oo war qoraala oo laga soo saaray aqalka la yiraahdo criminalka oo runtii ka hadlay telefoonkii dhaxmaray labada hogaamiye intaas aynu ku soo koobnaa wararkuna mar walba way iska soo daba dhacayaan mar walba waxaynu dhageystayaasheena u ballan qaadanaa inaynu siino xogaha sugan ee ku saabsan qadiyadan bariga dhexe oo mahadsantihiin dhammaantiin